niman caddaana oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi deedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso mathal yacni waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo ah sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa enjin yar baad mooteer yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 oo xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo ah sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu yidhi kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xaggeega fadeed baan idhahnaa Jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa deedna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo weliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobollada waddankoo dhan baad ka furaynaysaa markaa branch meelo maaragtaane aad ku iibisad kalluunka waddanka dhanba kalluunka adigaa siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo vilaayaad dhisan oo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi sownigii hurday maa imikadan